السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركز السود وذا أدي هذا ومهتنتين مانتو وإسنين وانا طاتنك مقال كان وحن ربائنا مانت إذا كل وذاقوه لبنن أو عدانة أو ترام أعودي تاجرنا أو أها إسلامركانا أي عيدا ماذا آيس أي حرين متك مدنا حاس كيسي لبضوا بأيربور رأيا لقى قبت متك مدنا حاس كيسي آيس حرين مدنا جبر أو حرير لها ودوني إن أو جورسدو أي حرين hadda waxay ka shalaynayaan marka inay Trump u codeeyeen waxayna leeyihiin arintan ma ahan arintii aan ugu codeynay in dadka sharci la'aanta ah ee dambiilayaasha la masaafuriyo ayaan Trump ku taageernaa laakiin ma ahan dad sharciga u hoggaansamaya in la masaafuriyo marka sheekadu iyagii ay ku timid sheekada labada nin ayaan rabaa inaan idin la wadaago meelaha ay ka kala dhacday xilliga ay dhacday halka ay marayso ayaan rabaa inaan idin la wadaago balse marka hore soo dhawaabashada iyo masaafurinta dadka wadanka sharci la'aanta ku soo galay ama kuwa darbiga ka soo booday ha noqdaan ama kuwa visa ku yimid oo waqtigii loogu talagalay waqti ka badan joogay ha ahaadaan haddaba sheekada labada nin bal aan idin la wadaago aan ku hormaro ninkan gobolka Texas degan oo magaciisa la yiraahdo John Cannon oo 75 jir ah waxa uu leeyahay hadda waan ka shalaynayaa in aan Trump u codeeyo kadib markii gabar uu xiriir la lahaa soo galooti ah oo asal ahaan Venezuela ka timid laakiin dhalasho Spain haysata markii bishii la soo dhaafay ciidamada ICE ay xireen ninkan la yiraahdo John Cannon waa nin ganacsada ah isla markaana lacag haysta oo ladan gabadhan ayay isfahmeen xiriir ayaana ka dhaxeeyay waxauna sheegay in uu doonayay in uu dhawaan guursado laakiin waxa uu sheegay in gabadha ay xiriirka lahaa oo la yiraahdo Yasmin Suarez Reyes oo 45 jir ah ay airportka magaalada Houston ee gobolka Texas 24kii bishii la soo dhaafay ee July ay doonayeen inay ka baxaan oo aadaan magaalada Las Vegas markaas kadib gabadhaasi 8 askari oo ciidamada ICE ka tirsan ayaa qabtay wayna xireen iyagoo aan waxba ii sheegin ayuu yiri 10 maalmood ayayna ugu qaadatay markaas kadib inaan la kulmo waxa uu yiri waxa loo baahnaa in ay xiraan oo ay masaafuriyaan dadka dambiilayaasha laakiin ma ahan dadka sharciga waa u hoggaansamaya in ay masaafuriyaan amaba ay xiraan waxa uu sheegay faraha ka qaada hooyooyinka aabayaasha iyo caruurta waxa uu yiri qoysas ay burburinayaan shaqooyin ayayna baabi'inayaan sidaas darteed waxa uu sheegay in shir uu ugu socday magaalada Las Vegas waxa uu leeyahay ninkan company dhinaca alaabaha guryaha iyo xafiisyada ah markaas kadib waxa uu sheegay in halkaasi lagu qabtay in gabadha uu xiriirka la lahaa isla markaana la xiray sidoo kale hoteelo ayaan ku leeyahay iyo maqaaxi ayuu yiri wadanka Mexico sidaas darteed ayaa waxa uu intaasi ku daray in uu hadda ka shalaynayo codkii madaxweyne Trump uu siiyay waxaana uu xaqiijiyay in arintan ay xanuujinayso ninkan gabadha uu xiriirka lahaa uu doonayay inuu guursado oo Yasmin Suarez la yiraahdo Mareykanka waxay si sharciya ku soo gashay 24 October sanadkii 2023 iyadoo sidoo kalena visa ku soo gashay waxaana ay haysataa dhalasho wadanka Spain sidaas darteed asylum ama magangeliyo ayaa waxa ay dalbatay January 19 sanadkii 2024 waxaana hadda kiiskeeda asylum ku ahaa mid pending oo wali go'aan aan laga gaarin waxaana uu sheegay inay haysatay kaar shaqo iyo waliba lesson gobolka Texas sidaas darteed waxa uu sheegay in ay ahayd qof sharciga u hoggaansamaysa waxa uu yiri aad ayaa u jeclaa maxaa yeelay dhakhtar ayaa waxa uu yiri waxa qabtaa cudur aadna gaariga la wada karin sidaa darteed meel kasto iyada ayaa i geyn jirtay marka waa kan isagoo ka sheekeynaya telefishinka CBS ayaa wareystay qaabkii loo xiray iyo arinta halka ay ka dhacday waxaana uu sidoo kale leeyahay arintan ma ahan arintii madaxweyne Trump aan ugu codeyno mararka qaar xitaa uu ilimeynaya. We were going to a furniture convention. We have some construction in Mexico City and we were needing furniture. There was line at the airport was really long and they didn't have premier access. So we signed up for Clear. And after signing up for Clear, we went to the United room. After leaving the United room, 8 officers, ICE agents, swarmed Jasmine and detained her, didn't tell us why, and rustled her off into a car. No explanation was given. Well, I was just in total disbelief.
Nothing like this has ever happened to me. You know, I have several businesses. I'm law-abiding, and I pay a lot of tax. Well, I mean, I sat down outside, and I just shook my head in total disbelief. I couldn't believe it. Well, they claim she overstayed her visa, but she filed an asylum visa, and all their filings were timely. Really had no reason to arrest her. I might also say it took them 10 days after that in which to file charges. We could not get any answers out of them. We had a court hearing. Our hearing was canceled because ICE had not filed any paperwork on her. I think it's about some kind of quota, and somebody's either making some money out of it or hitting the numbers that they need to hit. Well, had she not been arrested, we would have gotten married. How do I feel? I feel totally betrayed. I mean, you never think, or I never thought a guy like me would ever be involved in anything like this. Well, they had no right to detain her, okay? We went before a judge this morning, and he denied a bond because he said he didn't have the authorization to do that. What I would like is at least put her in an ankle monitor and let her out. Oh, yes. Oh, most definitely. I don't care what size bond they want. I can put it up. sidoo kale ninkan 75 jirka oo cadaanka oo la yiraahdo John Cannon waxa uu sheegay xitaa xildhibaanada laga soo doortay iyo senatarada gobolka Texas in arintan uu kala hadlay isla markaana waxa uu sheegay in xitaa uu yiri war GPS lugtaha looga soo xiro isla markaana hala soo daay wuxuu yiri lacag waan haystaa intii ay rabaan oo lacag damaanada ayaan dhigi karaa ayuu yiri laakiin waa loo diiday in damaanad lagu sii daayo waxana uu sheegay arintan in ay aad u xanuujinayso aysan ahayn arintii uu Trump ku taageeray maxaa yeelay waxa uu yiri waxa uu qabanaya howshii aan ku taageernay aan ahayn waxa uu xaqiijiyay sidoo kale ciidamada ICE in ay maalin kasta airportka Houston dad 100 qof ka badan ay qabanayaan qoysasna ay kala geynayaan waxa uu xaqiijiyay in ayna arintaasi ay tahay mid aan gabi ahaanba la aqbali karin oo ahayn mid Mareykanka looga bartay isla markaana ka dhacda wadamada kaligii taliga dadka hogaamiyaasha kaligii taliyaasha ah ay ka taliyaan waa kan mar kale isagoo arintaasi ka hadlay. That's not true. They've had a 30% decline in criminals, and they've had a 300% increase in law-abiding citizens. It's just easy, soft pickings. And for that reason, I'm thinking there's a bonus, some kind of quota, whatever. They're picking up 30 to 40 people out of our airport here in Houston a day. Oh, I'm definitely not. I voted for Trump. No, I'm not. I am saying that they are picking up law-abiding citizens. They're destroying families, jobs. I mean, I see ladies standing in line to see their kids over there at the detention center. And by the way, all the posters in the detention center about libraries, that's all a lie. They don't have any of that in there. I wouldn't do that again. Not after this fiasco. This is like the Gestapo. I do now. Yes, sir. I don't know what's happened to him. I think he's hit with a little dementia or something. You know, let's go after the criminals. They're not going after the hard guys. That's too difficult. It's easier to pick them up at the airport. You know, it's like shooting fish in a barrel. Well, I don't want to start talking. I'm going to start crying. I miss her being around. And if that doesn't work, then we'll go to deportation, and I'll visit her in Spain, bring her back to Mexico. She's in a cell with 60 to 80 ladies in one room. The conditions are horrible. It's not what I voted for. It's not what I believe. Not what I believe the American system should be. sheekada ninkaasi haddii halkaasi aan ka gudbo sheekadan kale waxa ay qusaysaa nin Trump isaguna dhaqdhaqaaqiisa maaga daacad u ahaa isla markaana saddexdii mar oo Trump uu tartamay 2016 20 iyo 24 uu codeeyay siyaasadihiisa immigration kana taageersana hadda isaga ayay ku timid marka ninkan Brent Genter ayaa la yiraahdo 48 jir dhinaca tiknoolajiyada ayuuna ka shaqeeyaa The New York Times ayaa wuxuu u sheegay in xaaskiisa oo la yiraahdo Galina Bourbonera
Leva oo 45 jir ah lagu xiray 13 bishii toddobaad ee la soo dhaafay ee July garoonka leeyahay Burbank oo ku yaala California. waxa uu sheegay waxa loo diray xaaskiisa secondary screening wax la yiraahdo qofka mararka qaar systemka ama computerku waa uu ku dhagaya waxaana loo dirayaa secondary screening oo baaritaan dheeraad ah ayaa loo dirayaa oo qol ayaa la geenayaa lagu wareysanaya. markaas kadib waxa uu yiri 15 daqiiqo kadib xaaskeedii waa la jeebeeyay waxaana lagu qaaday gaari ciidamada ICE ay leeyihiin waxaana la geeyay meel lagu sii haynayo oo ku taala magaalada Los Angeles. waxa uu xaqiijiyay marka in arintaasi ay noqotay mid uu si weyn ula yaabay. xaaskiisa waxa uu sheegay in San Francisco ay u socdeen isla markaana halkaasi uu macaamiishiisa qaar uu kula kulmayay waxaana uu xaqiijiyay xaaskiisana in ay saaxiibo ay leedahay ay sidoo kale halkaasi ay kula kulmaysay. ninkan waxa uu sheegay in xaaskiisa ay Mareykanka ay soo gashay sanadkii 2021 viisaheedana 2 mar muddo kordhin lagu sameeyay asylumna ay dalbatay sanadkii 2022 in green cardna ay dalbatay oo applicationkeedii wali aan go'aan laga gaarin. 16 maalmood ayay xirneed adiga 2 toddobaad waxa lagu soo dayay $35,000 Mareykanka iyadoo lugtana waliba qalab GPS oo dhaqdhaqaaqeeda lagu soconayo ayna lagu soo xiray. waxa ay sheegtay intii xabsiga ay ku jirtay in 120 haween ah ay shaqo la qabanaysay hurdadana waa loo diiday maxaa yeelay nalka lama damiyo iska shidan yahay raadiyaasha ay wataan ciidamada xabsiga ilaalinayana markastaba qayladooda ayaa baxaysa oo laga ma seexan karo. waxay tiri sidoo kale waxaan arkay haweenay uur leh oo loo diiday cirbada oo macaan qabtay oo cirbada macaanka loo diiday. waxay sheegtay biyo nadiif ah oo ay cabaan in ay sidoo kale aysan jirin iyadoo intaasi ku dartay sidoo kale muddadaasi ay xirneed in 4 mar oo kaliya qubays loo ogolaaday. marka ninkan isaguna waxa uu ahaa nin Trump aad u taageersan laakiin markiisa ayay ku timid oo xaaskiisa ayaa la xiray. waxa maxkamadeeda ugu horeysay ay noqon doontaa bisha 9aad ee soo socota 7deeda halka sidoo kale maxkamadeeda labaad loo balamiyay 22 bisha 10aad ee October. marka labada nin oo Trump taageersan ayay ahaayeen laakiin mid kastaba isagoo garoonka xaaskiisa oo soo galootay doonaya kala dhoofiyo isla markaana wax dareen aan qabin ayaa airportada laga qabtay. inta badan hadda ICE airportada waa ay joogaan qof kasta oo ay arkaan in wadanka intuu visa ku soo galay fiisihiisii muddo ka badan waqtigii loogu talagalay ku joogay waa ay qabanayaan waa ay xirayaan. sidoo kale goobaha interviewada loo tago sida green cardka ayaa sidoo kale la isku xiraya. ballamaha ciidamada ICE dadka ay u qabanayaan marka ay tagaan qofkii ay rabaanna waa ay soo daynayaan qofkii ay rabaanna sidoo kale waa ay qabanayaan. marka howlgaladooda wali ciidamada ICE waa ay wadaan laakiin hadda raggan waxay leeyihiin Trump ayaan taageersaneen siyaasadihiisa immigrationka isaga ayaan u codaynay laakiin hadda waxay leeyihiin waan ka shalaynayna maxaa yeelay markii iyaga ay ku timid ayay ka shalaynayaan laakiin markii hore hawshu sida ay u socoto waa ay taageersanayeen. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale